nabadgelyo. xayeysi haddii aad tahay sideeda oo kale ma dhar badan ayaad iska dul gashanaysaa mise waxaad ku biiraysaa kooxda malabka muudsata ee haadaanta ku dhacaysa. ma ogtahay muqdisho gudaheeda in gabdho Soomaaliyeed ay ugu geeriyoodeen daawooyinka la isku cayiliya oo uusan dhakhtar u qorin. bal ka waran abaayo adigoo jalaqsanaan jir qurxoon iyo soo jiidasho doonaya haddii aad isfool xumayso oo ay noloshaadiiba ku idlaato dhinacna inaad ka cayisho dhinacna ka caatooyo. mala socotaa kaniiniga iyo malabka aad muudsatay aadan dooran karin qaab dhismeedka aad rabtid jirkaada inuu noqdo. waa macluumaad muhiima iyo xog ka qarsoon bulshadeena Soomaaliyeed balse marka hore muuqaalka like saar kadibna la wadaag saaxiibadaada ku xiran. magaalada Muqdisho waxaa ka socda ganacsi halis ku ah bulshadeena kana qarsoon indhaha madaxda kaasi oo haddii aan wax laga qabanin bulsho badan laynaya. waxay dhaqaale ka sameynayaan dadkeena iyaga oo dalka soo gelinaya daawooyin ay dumarkeena ugu sheegayaan inaysan raawisi doonin ayna ku cayili doonaan. malaba isticmaalay oo muddo 2 bilood isticmaalay malabkiina waan ku xanuunsaday. waa Sumayo oo magaceeda runta aanu ahayn waxa ay ka mid tahay gabdhaha isticmaalay malabkan isla markaasna doonaya inay cayisho laakiin waxa ay ka dhaxashay dhibaato ay uga digayso gabdhaha Soomaaliyeed. sidaas darteeda malabku isticmaalay muddo 2 bilood waxaan ka bixi lahaa xanuun ilaa hadda aan la jiifo waxaan isku arkay kaliya xanuun waxaan isku arkay korjeexjeex waxaan isku arkay qandho waxaan isku arkay barar jirka dhan ah. marka sidaas daraaddeed arrintaas walaalo igu soo siyaaday gabdho badan waan ku hayaa oo ayagana saas oo kale ula xanuunsan sidaas aan marka rawi inaan kula wadaago. goobaha farmashiyada ayaa lagu iibiyaa sidoo kale waxaa jirta koox qaabilsan xitaa in guryihiina ay daawooyinkan idinku keenaan. malabka qofka markuu isticmaalo wuxuu isku arkayaa calaamadaha soo socda. kow barar buu wuxuu ku arkayaa halkaas wejigiisa qoorta garbaha maxaa la yiraahdaa inta shafka. waa dhakhtar Adceed oo aan weydiinay inuu inoo sharxo halista uu keeni karo kaniinkan iyo malabka la isticmaalayo ee gabdhaheenu ay aad ugu waasheen iyaga oo cayil raadisa. ganacsi ahaan baa waxa loo keenay dalka Soomaaliya markii la keeno qof kasta waxa laga dhaadhiciyaa ama loo sheegay malabkan in lagu cayilo ama qurux laga qaado. marka dumar badan iyo rag badan oo caata ah waxay u hamiyeen inay malabkan isticmaalaan. saas awgeed ayaa malabkan markaas loo keenay dalka saas awgeed ayuu suuq ku yeeshay saas awgeed ayuu qofku markaas wuxuu isku arkayaa barar joogto ah iyo wuxuu ku arkayaa jirkiisa dhexdiisa ayuu ku arkayaa. malabka qofka markuu isticmaalo wuxuu isku arkayaa calaamadaha soo socda. kow barar buu wuxuu ku arkayaa halkaas wejigiisa qoorta garbaha maxaa la yiraahdaa inta shafka dhabarka dambe caloosha ilaa qaarka kore ayuu wuxuu ka dareemayaa barar oo qofkaas wuxuu isku moodayaa inuu cayilay oo kaato ayuu moodayaa laakiin ma ahan cayil. dadka Soomaalida khatar badan waxay ugu jiraan inay ka qaadaan gaas inay ka qaadaan khatar badan waxay ugu jiraan maxaa la yiraahdaa dhiikar inuu ku dhaco khatar badan waxay ugu jiraan inay ka qaadaan xanuunka cholesterolka khatar badan waxay ugu jiraan inay naftooda haligaan. marka saas awgeed aniga mar kasta waxaan ku taliyaa ama dadka dhaqaatiirta ay ku taliyaan miisaanka iyo hilibka caatada miisaanka badan in laga fogaado oo qofku uu noqdo qof caafimaadkiisu uu fiican yahay oo uusan cayilneyn. iyadu uu dhakhtarka sidaan ugu digaya halista daawooyinkan haddana waxaa jira dumar ku qanacsan oo doonaya in jirkooda ay ku bedelaan sida gabadhan oo kale. waxaan isticmaalay malabka la isku cayiliyo markii aan arkay gabdho badan oo saaxiibada ah isticmaalay kadib dhakhtar ima qorin laakiin anaa isticmaalay kadib wax xaalad caafimaad darro iskumaan arag dadka qaar way ammaanayaan dadka qaar way rabeelayaan. ragga caafada ah howl badan ayaa loo yeeray sida awoodeed dumarka lafreed waxay ku amreen in ay biraha la saaxiibaan si ay markuu yeeshaan annagana iyaga waxaan kula dardaarmaynaa si ay u noqdaan kuwa dhisan birta inay la saaxiibaan oo ay malabkan iska daayaan. sir ayaan ku hayaa walaal haddii aad tahay caato dabcan birtan waad isku cayilin kartaa haddii aad tahay dad cayilan isla iyada ayaa haddana isku caateyn kartaa.